Okay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada muuqaal kale. Insha Allah muuqaalkan waxaa ku sharixi doonaa shirkadda payout-ka qaatay oo aan intaan muddada ah aan idinku soo bandhigaya barteeda social media. Horta intaan muuqaal gudaha u galin waxaa rabaa inaan ku sheego ana haddii beri ay wax imaadaan waa ka madax banaana. Because shirkadda ana ma lihi, share kuma lihi, just qof waxaa ah trader arkay shirkadda fursad ka qaatay kadibna dadkiisu soo bandhigay marka Soomaaliya haddii biri wax imaado yaa la dhihin de meedhow adaana gelisay adaasaana yeeshay midda kale muuqaalkan waxaa kugu sharixi doon ruleska intaas dhihi karo waa inta as dhihi karo ereygaas bracket gasho waxaa ku dhahay inta as dhihi karo waa ii sheeg ugu waaweyn rugaasha ugu waaweyn as dhihi karo ayaa inta kugu sharixi doona micnaheedu marka ma ahan muuqaalkan keliya inaad ku koobnaatid sidoo kale waxaa aadaa website-ka iskana soo akhri ruleska okay rulka shirkadaha ay leedahay waxaa ka mid ah dhowr rule horta rule koowaad oo idinka fahmi kartay waxaa ka mid ah news trading ma jiro 10 minute okay 10 minute ana markaa sharaxaya wixii waa iska gaaban yihiin muuqaalada dheer ma jecel 10 minute before iyo 10 minute after waxaa inta wax ugu diyaarsan waxay tahay marka wax qoraayo xoogaa fahanka si fiican ay fahmaysiin marka hadda wax qora laakiin oo aan ii dul maro xoogaa ma qurux badan 10 minute news iyo 10 minute after news okay newska ha isticmaalin forex factory keliya ee waxaa isticmaashaa website-kooda isticmaal because website-ka waxaa ku jirta eedan economic calendar I don't know intaad ka arki kartid koomadeeda fundingka waa waxaan I don't know inaad ka arki okay, waa ka arki karnaa waa kana economic calendar marka accounts maadid economic calendar ku dhufo marka economic calendar ku dhufatid waxaa kuu soo bixi doono waxaa kusoo bixi newsada aysan ogoleen hadda Spain oo kale waa lacagta euro ay ka tirsan tahay Turkey oo kale daa trade garaynaysa wuxuu ku leeyahay European Union waa iidana lacagta euroda waa marka Spain oo kale markay aragtid already euroda ka mid tahay waa eurozone marka lacagta euroda iska ilaali inaad ka trade garaysid 10 minute because wuxuu ku leeyahay 5 daqiiqa ka dhiman wuu kuusii sheegaa marka calendarkan isticmaal iyo 10 minutes kaas iyo 10 minutes afterka okay shirkadda waxay kaloo leedahay rule kale oo isna la yiraahdo eh, profit cap profit cap maxaa waaye profit cap maxaa waaye? shirkadda profitka aad samaynaysa wuu xadidan yahay shirkadda waxay ku leedahay boqolkiiba 6 ma samayn kartid ka badan haddaa samaysa inta kale waa ajaabkaaga anaga kuma siinayna kuleeyahay lixdaada kaa siinayna okay 6 boqolkiiba ka badan ma samayn kartid sorry boqolkiiba 6 ka badan ma samayn kartid hadduu akoonkaaga 100k yahay waxaa u badan 6000 hadduu akoonkaaga 50k yahay waxaa u badan 3000 hadduu akoonkaaga 30k yahay waxaa u badan 1800 okay hadduu akoonkaaga 10k yahay waxaa kugu badan aad samayn kartid waa 600 waa rulka kale profit capka ah shirkadda waxay leedahay waxaa ku ilaalinaynaa raasamaalkeena because HFT aa kusoo gudubtay durbo 1 minute aa lagu soo dhaafsiiyey oo waxaa isticmaashay isheeg bahalkan inta ku jiro so waxay ku leeyihiin marka we can't boqolkiiba 6 ka badan kuma siin karno marka boqolkiiba 6 waaba lacag badan ba waaba lacag free ah meel iska taal challenge aad 10 daqiiqo lagu dhaafiyey 5 daqiiqo lagu dhaafiyey 2 daqiiqo lagu dhaafiyey 15 kadib waxaa samaysay $600 markay u yarto you see waa free money waxaana kuu sheegaya hadda adiga positive u aragtid waa kuu shaqeynaya hadda negative u aragtid kumaba shaqeynayaanba kumana anfacaya muuqaal ka soco okay taas waa rulka kale aan shirkadda isdhihi karo waa ii sheeg waa leedahay okay shirkadda waxay leedahay waxa la dhahayo taas geesaan ku qoro inaad si fahantaan isku daya muuqaal kale oo telegramka asina waan ku sharaxay please muuqaalkaas isana soo daawad waxay leedahay waxa la dhahayo 25% consistency rule shirkadda waxaa laga wadaa basically shirkadda ma rabta inay aragto qof inuu iska imaado hal set bahel $5,000 ku sameeyo laakiin shirkadda waxay rabtaa inay aragto qofkan trader profitable miya see nugu tusan kartaa $5,000 ma 4 trade u kala qaybisa lagu leeyahay oo 4 maalmood kala duwan kala qaadatid simple marka si aad rulkan iskaga ilaalisid horta rulkaas lagu sameeyaa nil fahansiina haddii aad $6,000 samayso for example $6,000 waxaa lagu dhufanayaa okay waxaa lagu dhufanayaa ama lagu multiply gareynayaa
waxaa lagu dhufanayaa boqolkiiba 25. waxaa soo bixi doonto waxaa soo bixi doonto waxaa soo bixi doonto sorry guys, waxaa soo bixi doonto marka meeqa, waxaa soo bixi doonto 1500. tirada soo baxda, tiro walba aa samaysid at the end of the day, for example maanta profit dalbara $1000 aa samey, intaa soo trade gareynaya dhan. kunkaas doo intaad dalbiro waa 25 ku dhuftaa horta, ama $2000 aa samey, wax la sheega adi, as long as 6% ka badnaan. $600 sameys, $400 sameys, 25 ku dhufo, maanta ku dhufanin de markaa payout qaadin isku dhufo. tirada kuu soo baxdo hadday 1500 noqoto, waxaa ku laabataa tradingkaada dib ugu laab. waxaa raaysaa maalin ma jirta aa samaysay 1500 ka badan trade maya, maalin ma jirta aa samaysay 1500 ka badan. haddii kuu soo baxa maalin aa 1400 samaysay dee rulka waa ku guulaysatay. laakiin haddii kuu soo baxa maalin aa 1600 samaysay rulka waa ku dhacday. haddii hadhow payout lagu soo diiday adaa isku keentay, because wixii intaa hadda kugu sharaxay. rulka marka see ugu hortagi kartaa, horta boqolkiiba 6 soo laguma ogolo ha. okay, boqolkiiba 6 soo laguma ogolo akoonka hadduu 100 kiya tira qabsa adi. waxaa dhahdaa in 6% aa lii ogol yahay, laakiin 6% ma warabo, ani 4% iga badan. waxaan waa HFT aan kusoo gudbay, stress ima haysto. ya payoutkii waxay kadib waa qaadan doonaa, rulkaas aa u ilaaliyo, xisaab go-an oo cayman waa inaad sii samaystaa. shirkadda uma sheegaysa, qasab ma ahde, shirkadda wax ku filays ma laha. hadda usha shirkadda ma kala jeclo, hadhow rulkeeda unbay fiirsanaysaa. adi marka niyadaada iyo bul iyo rugaada wax ku qabso. for example akoonkan 100 waa 4% aa qabsan. okay, 4% markaa qabsano $4000 waa. 4 kun marka maxaa ku dhufanaa, ilan waa lacagta soo baxday marka payout-ka qaadanaya mugta. totalka for example aku dhaha 4 kun 3 kun waxaad qabso dee number yaa la isku Soomaali horti fahma. ani wallahi Soomaalina wax u sharax sometimes waa dhibsadaa, because dhalinyarada qaar ayagoo muuqaalka wax uu sharaxda afka hore laga daawana waa laga cararaa. marka hadhow ila soo yeesha kugu qaylihay igu xanaaqin, because hadda waxaan bixinaa energy, waan qaylinaa gacmihiisa u kala tuura, kaamirada iga xiran mooya, gacmahaasa u kala tuura. hadda arki leed, you couldn't imagine energy-gaa bixinaysa wax sharaxa. marka muuqaalka si fiican u daawada. 4% waa tiro aadan kuu sheegay, si xisaabtaas iskaga ilaalisa. haddaa 2 qabso, haddaa 3 qabso, kaliya intaa ku sheegi doona ku dhufso. so 4% waxaa ku dhufanaa 25. okay, kadib 100 aa u qaybinaa, kadib maxaa u qaybinaa 100 aa u qaybinaa. marka numberka ii soo bixi doono markaa 100 u qaybiyo. okay, markaa 100 u qaybiyo, numberka ii soo bixi doono wuxuu noqon doonaa $1000. si fiican ii dhegeysta, maxaa sameynaa maalin walba markaad trade gareynaya profitka $1000 kama badinaa. waa ka hooseyn karaa, laakiin 900 samayn karaa, 800 samayn karaa. laakiin haddaa minus gala xataa maanta 1000 minus aa gala, beri trade fiican aa helo, kunkaas unbaa ku ekaanaa, because targetkii 4000 ahaa. kun markii la gaari tradekii waa jarnaane. xaanu haddaa 1100 samaysid 4 kun isbedeli doontaa lacagta. hadhow 4 kun lacagna ku dirtid waa. so jaajaraa soo qaanaa intuusan iga damin, waxyar ii kaadiyey. okay, ما xasuusta meesha maraya, laakiin sorry waa xasuustaa. waxaa marayn waxay ahayd, haddii aad samaysid $1000 iyo 100 haddaad samaysid afarta ku hadhow xisaabta ku dirsamee. marka waxaan sameynaya marka aniga 100 kunkayga doolar ma dhaafaya maalintii. maalin 500 aa samey, maalin 600 aa samey, maalin 900 aa samey. intaasaa ku ekeenaa. midda kale waxaa u baahanahay 4 trade inaa helo si aa kunkaas doolar u buuxiyo. okay, waxaa u baahanaha ku dhaha inaa helo 4 trade si aa kunkaas doolar u buuxiyo, ka badan uma baahan. saa isku maalinaya trade styleka adaa og. okay, taas iyadana waa rule kale oo aaro inaa ogaatiin oo si gooni ah ameel idinku qoran. okay, waa maxay rulka kale aan leenahay shirkaddan ee leedahay aan leenahay kulaha waxaa aad laa sida shirkaddan aan leeyahay oo kale. shirkaddan daalaan la iidhaa leedahay lacag badan oo Soomaali sameeyay anna ka sameey lahay. okay, rule kale aan leenahay marka maxaa waay? rule kale aan leenahay waxaa weeyaan, waxaa la lahaa mataqaanaa manifestation waa very important mugta inaa u hayso sida shirkaddan aad leedahay oo kale. rule kale aan leenahay waxaa weeyaan withdrawalka koowaad, withdrawalka aan ka hadalna marka maanta. okay, maanta waxaa ka hadlana withdrawalka, waxaa caanisha manifestation oo hadlo baashin aan leeyahay oo kale. okay, withdrawalka shirkaddan ee leedahay waxaa weeyaan
withdrawalka koowaad horta inaad trade gareysid waxaa payout waxaa kaa xigay inaad trade gareysid 15 days from your first trade. For example, akoonka maanta lagu dhaafiyay isla galabta markii loganka lagu soo diro in shirkadda wax lama sugsugee markii hore lagaa soo diro trade-ka isla galabta place garee maalintaas ku ii bilaabanaysaa wixii sabti axad waa lagu daraa 15 maalmood kadib unbaad profit dalban kartaa ka hor laakiin ma dalban kartid because maba gaarin ba 3 days maanta dhammaysan. Okay, 15 haddii la dhaafo oo shan kale aad ku dirsatid oo lacagna ku saaran tahay sida hadda rulkooda uu sheegaa still waa dalban kartaa hadda 15 kale 15 kale dhamaatee 15 kale lagu xijina lagu dhihi maayo kabana shirkad challenge 5 daqiiqo lagu dhaafiyay lacag aad samaysay 15 maalmood kadib aa helaysid ilaahay nagu dhaashay fursaddaas teetaala dadka doqomada ah waa dadka keliya balaayo inay iska dhigaan u maleeya challenge in la finay gulta waan dhibka Soomaaliya haysato qof wuxuu ku leeyahay challenge ay dhaafinays adig kale challenge-ga inaad dhaaftid maxaa guli u aragtaa horta marka koowaad profile meesha lacagta ugu badan ay ka sameeyaan challenge inaad ku dhacdid why a profile adiga ah والله waxyaabahan kale niyo guys igara la noqda hada isheg si qalad ha ii fahmeen laakiin dareenku waxa igala waxay tahay dhalinyarada Soomaalida waxa ku arkay qofka in challenge la gulbi in la gudbi inuu guul u malayo waraa 9 challenge lagu ba face 1 lagu ba face 2 lagu dhaca face 1 face 2 lagu akoonka live ku lagu ba maxaa ka dabaaldegay waxaan dheemo aa gudubtay maxaa ka dabaaldegay yaa lacag kugu siino waxa lagu marsiinaa waxay tahay adin lagu cadaadiyay lacagta ka gubatay ila runta isku sheegay profile soo shaqeeyay saas tahay profile intuu lacag keena waa challenge la gato lagu dhacay ila wax kale ma ahan kamaanta ka qarsoon taas ogaaw marka adiga challenge in la gudbo maxaa horta u arkaysaa guulnata challenge 15 maalmood I mean one day ku gudubtay 15 maalmood kadib lacag maxaa ka maqan rulka la ku saaro rulku u adag حدثان استحسابته استعماشتنا واح كوفو فير وحيد هان قبرده دب والبو هذاك هو حيرنت هداون وينس وكل وين انا هدايا يستنى وكل يرانا سيفر سيمبل واحد وحبا يعني لك سوق قاعد ذن كم دبا لكن هداون بون يستد والك ديت هذاك دبا سادو اوكي وحنا في دلول 15 دايز اوكي ودلول بروفيت سبليت شركه سو بحساب مركه بروفيت سبليت شركه سو بحساب بروفيت كواد سفعل يدقيسو هذا اسكو لابن دي بروفيت كواد و 50% 15 days كده after another 15 days محو نقرا بروفيت كاد وحو نقرا 70% another 15 days كده بروفيت كاد محو نقرا يا 80% ماشي سكو جوجا marka shirkad meesha kuma dhaafinayso xalay 50% maxay u qaadanayna dhago aad ma iska labeesh waa may bishina isticmaasha ku soo gudubtay شو انت كده بالعقل وسينا maxaa ku diiday boqolkii konton markood lagu sii ila fiir face 1 waxa ku gudbisaa markii uu yartaa 15 days face 2 15 days ku gudbisaa hay life kama qaa joogi karta anada 15 days kale one and a half months joogaysa lacag isma meesha lacag 15 days kadib lacag qaadana face 1 iyo face 2 laba maalmood ku dhaafi isku xigta then itus dashboardka itus ifur aragna inta akoona soo gudta pay ultimate payout ka itus فيس واحد حكون في one day فيس تو حكون في another one day والله بالله أنا واحد نوش شيء قصة جوتا أنا فاين جوتا تادين مخالك رحبة هاد هاورين ضدك تجعل أو إيش فرصة كيف أيز بس مخالك الوتر الجلا أنت تشالنجي مركا كهالله معناها مدح يقع أنت مركا أركض لين رضا أو ملاس إن فيسون فيس تو لقد بإنا تواح لو فار أوكي تاس وقيب تاس كسعة بروفيت سبليت كأيدنه وكوشر ما يقروا لهذا هنا كو لو سدح أفر رولك كله أو أيدنه أن بيكرو هذا شركة إلى هاي أوكي رولك كله شركة إلى هاي ها وحيت هاي ويكند تريد مول جرين كرتد أوكي ويك إن تريد مول جرين كرتد ويكند تريد مول جرين كرتد نو هولدينج ها اوكي ها شركه waxay kala leedahay losing position trade kuma dari kartid aw ilaa losing position trade kuma kartid ba trade ne 2% ka badan ma risk garan kartid okay ba trade 2% ka badan ma risk garan kartid inta sharaxna marka
losing position maxaa kada for example oo kale AUDSD aa buy u gashay drawdown uu kula soo aaday adiga inuu 10 bib ku jiro aadan position kale soo furtay khalad waa lama ogolo hal maraa gashay meesha discipline lagu yeela xaniyaa lagaa istaa hal maraa gashay ku ekaaw ama TB ama SL waxaan laakiin abdarada position kusoo dadaraysa joojiya lagu leeyahay maxaa ku soo haray tireerkine two past ka badan ma risgareyn kartid intaa maxaa la ilaalina adaa akoonka lagu ilaalinaa tireer ka badana ma risgareyn kartid marka guys insha allah muuqaalka halkaas ku ekeen doonaa I think si fiican oo qurux badan waa u sharaxay basically intaan waa rulka ugu waaweyn oo aan dhihi kara maxaa la yidhahdaa waa meesha ku sharaxday disclaimer aan ku siinaya shirkaddan haddii ay beri baxdo mas-uulka ma yihi haddaad isticmaal haddaad taa isticmaalin laakiin waqti xaadirka la joogo waa shirkad fiican oo payout-kana bixinayso diyaarna u ah inay community gacan qabato haddii xumaatana waxaa noqon doonaa qofka koowaad ee soo sheego intay fursaddan jirtana waxaan ku leeyahay ka welweline waqti xaadirka muuqaalka aa arkaysa aduwa akoon furo intaa trading ka ana ka hadlaa ka faa'iidayso akoon furo shirkadda lacag ka sameey misla fahanay okay taa waa taas insha allah rulkeeda wixii soo sheegnay marka waxaan fiiri doonaa eedana qaabka markaas aan account ugu gadan lahayn shirkadda trading calt marka yeah sidoo kale waxaan isla fiiri doonaa insha allah qaabka maxaa la yidhahdaa agreementiga u saxiixileed sidoo kale qaabka payout-ka u dalbaleed eedana isla fiiri doonaa insha allah okay waxaan leeyahay new challenge oo kale new challenge markaa dhaho mar walba waxaa doorataa waxaan iga xir bal iskaga xira waxaan de waxaan waa xiran lahay waxaan leeyahay new challenge okay shirkadda waxay leedahay ah, okay wow shirkadda instant funded aa leedahay maanan ogeynay waa wax kale I never knew this is crazy guys ma ogeyn barnaamijkan isla fiirinaba kan macalada akoonka 100k may qaysinayaan ani ile 100k baa maalin walba ka bilaabaa okay 500 oo dollar ay siinayaan choose one challenge instant funding profit target phase 1 10%. Okay, they can instant challenge maxay ka wadaan choose one challenge waa kan waxaan fahmayay meeshaan fahmaya igu celin instant funding kan I don't think inuu evaluation waa soo baari doonaa laakiin okay haddaa two evaluation waan qaadan kartaa sida shirkadaha kale caadiga ah which is nice I will waa kugula talin lahaa because markaad two evaluation ka joogtid waxaa heli kartaa account akoomo yaryar aa heli kartaa two evaluation markaad tagna fiiri akoon waxaa helisaa 5k 5k gadu waa very cheap de waa $30 bis oo weliba aa leedahay coupon code aa isticmaali kartid for example kale haddii aa isticmaashid coupon codekeyga med fx waa boqolkiiba 30 wey maxaa ku dhahay coupon codeka waa boqolkiiba 30 marka okay waxyaaba kale inaad soo buuxisid waa marka dee ka faa'iidaysta $22 meelahaas u taga akoonka 5k marka ka faa'iidaysta insha allah taa waa taas asla aragna marka qaabka aan u iibsan lahayn akoonka HFT-ga marka haddii aad rabtid account 200k ah soo kalaasina waa very cheap waa $999 laakiin kubonkooda ku siinaya waa lacag very aad u yaraa bixinaysa lacag weyn maahan marka yeah maximum total waxyaaba ku fiican waxaa ka mid ah total loss waxaa lagu ogolyahay 15% imagine waa 15% that's crazy double leverage can ma fahansani plus 20% I don't even understand maximum daily loss waa 10% that's imagine guys 10% aa lagu ogolyahay shirkadaha kale wax badan ay ka bedeli doontaa insha allah laakiin marka aad rabtid in akoon kuu dhaafiyo meeshan two ku qoran tahay maalin waxaa imaadaa meeshan one ku qoran tahay meeshan wanka marka qoranta aa imaadid waxaa buuxsaa magacaaga saddexan emailkaaga nambarkaaga nambaradaada geli intaa markaa soo gelisid xoogtaada aad soo buuxisid kadib tc waxaa laga wadaa waa platformka tradingka halta ay isticmaasho waa iska mt4 waa tc waa iskaga qoraan programmada kadib waxaa leedahay I declare waxaa diyaar u ahay kadibna meeshaana tegaysaa kadib waxaa gelinaysaa made effects
so aniga basically ima yeelaayo, I don't think, ama waxbaa kasoo tagay. Let's try inaan soo buuxin wax walbaa kasoo tagin. Okay, waxaa kasoo tagay malahan. Okay, purchase price zero uu leeyahay, maxaa zero ahde? Oh, kor maa soo dooraninba. Okay, كوبون كوركا استعمال دونو مين افكس ده استعمال بقول كيف صدنا هلا حتى شركة كيدز بقول كيف صدنا كي كليا بقول كيف صدنا شركة كيد بقول كيف لو اتنشن مركا كله في فيرفاغاس مركا فيرفاغ كله في تدفير بقول إتوات سجال دولار على قاعد توري ما قاعد بحنسا أفر بقول إسرائيل تندر كده بحالة بروسيد تو بيمنت هدي مركا كار أب بدني ست إذا نقص دونا هدي لك كريبتا أب بدني إذا نقص دونا قابك أنت إما مركا إمادد وعقولية هاي بروسيد تو بيمنت بروسيس بيمنت markaa yiraahdo meeshaan u keen doonaa kadib wuxuu kule intaasaa bixi doontaa intaasaa discount lagu sameeyey warqadaada waatana check outkaaga maxaa rabtaa lacagta inaad ku bixiso script ma rabtaa mise kaar rabtaa haddii kaar aadid credit card dheh credit card markaa dhaadid xogtaada buuxi kadib haddaa rabtid maxaa la dhahaa crypto tag kadib I have declare dheh kadib meeshaa imaado marka haddaa rabtid inaad akoonka ku iibisay dhalinyarada qaar aa u samey karabtid inta badan ma haystaan crypto soo dhufso crypto markaa soo dhufsatid kadib meesha imaa kusoo dhufso payphone order kusoo dhufso markaa payphone order kusoo dhufsatid savingskaaga hubiya dee network hadhow iska qaladaan aniga lii eedeynin network koowaad waxaa ku dhufanaysaa tether kan labaad waxaa ku dhufanaynaa ethereum okay website-ka load gareenaayo waxaa ku dhaha kan koowaad waxaa ku dhufanaysaa tether ether ha ku dhufanin tether ku dhufo tether markaa ku dhufatid kadibna ethereum ku dhufo ethereum ku dhufto meeshaan sawir ka soo qaad meeshaasna copy soo dhex that's it intaas medical emailka markaa furinaysa insha allah iska sax taas marka waa qaabka iyadana ogal lahayn rules waa soo aragnay qaabka aan u saxiixi lahayn agreementiga markaan dhammeeno akoonka la dhaafiyo ayaa isla fiirino sidoo kalena ayaa isla fiirin insha allah qaabka aad payout ku dalbaleen mida kale aan ku raacno xitaa KYC-ga waxaa buuxinaysaa markaa payout gaartid marka stress ku haynin insha allah isla socono marka